tobanka bisha Muharram waxaan ku soo dhaweynaynaa Suldaan kamid ah bahda dhaqanka Soomaaliland oo Suudaadiinta waaweyn ku tirsan oo ah Suldaan Cabdiraxiin Saxardiid Suldaan lagu qaalaya wadanka UK ka soo kicitay Suudaankaas oo si kaliya laaba ugu soo dhaweynayno magaalada Hargeysa gobolka Maroodijeex hadda aanu taaganahay airportka waxaan leenahay Suldaan soo dhawow kaliya laabaan ku soo dhaweynaynaa waa ku sugaynay wadankaaga baad nabad qab ugu soo noqotay waa ku tabaynay hawsha wixii ma garanaysaa aanu sii qaban karaynay waa sii haynay wixii kaalintaada ah waad nagu soo gaadhay aad baan hadii Ilaahay nafteenu daay ugu faraxsanahay inaad nagu soo laabato iyadoo imika hawlo badan oo maaragtay wadanka ay ku soo fooleeyeen hawlo qarana sida doorashooyinka marka inaad nagu soo gaadho taladii aad baan ugu faraxsanahay halkaas inuu ka wada agaasimi doonaa waan ku soo dhaweynaynaa aad baan ku soo dhaweynaynaa waan ku soo duceynaa Ilaahay ha ku barakeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim wassalatu wassalamu ala rasuulillah maanta ay tahay 7 bishii 8aad oo maalin Jimco ah waxaynu halka ku soo dhaweynaynaa airport ka Hargeysa ka soo degay Suldaan Cabdiraxiin Saxardiid waxaanu leenahay Suldaan soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhaweynaynaa faliya tafadal Suldaan anigoo ku hadlaya afka guddiga guud ee beesha waxaan si weyn halkan ugu soo dhaweynaynaa suldaankii beesha waa Suldaan Cabdiraxiin Saxardiid Kaahin waxaanu ku leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow dalkaaga hooyo qalbi furan kugu soo dhaweynaynaa waa suldaan nagu qaaliya Ilaahay ha barakeeyaan leenahay amniya amaan baad ku timi ساسن كالقعل بان كسو دويرنا aad baana u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nastaciin ala umur dunya wa diin nasiib baa lagu kulmaa waa nasiib wanaagsan maalin jimcaha way salaad casar dabadeedii way waqtiga la duceysto weeyaan Suudaanka ayaa Saxardiid ifafaalaad ka garataa qofka laga raaliyahay qalbiga raali ka yahay kulankaas ka garataa dadka yuhuuntiisa ka garataa ducadaad ka garataa duqeeyada iyo culimadaad ka garataa abwaaniinkaad ka garataa waxa suldaanku ma aha qoys mana aha reer mana aha wadan qura islaamka ummadda nabi maxamed buu wakiil ka yahay hadii uu suldaan qaato ama caaqil ama darajada haduu gaaro Suldaan Cabdilaahi baa la weydiiyay Ingiriiski waxay ku yiraahdeen Suldaan Cabdilaahi hadiyo goor dalkaad u hadashay dadkii islaam u batiraay adigu ma saad u tahay Suldaan kolkaasuu ummadda nabi maxamed oo dhan waa suldaan wax suldaanka maanta aynu joognaa ummadda nabi maxamed oo dhan ayuu yahay suldaan waxaanu u yahay gaalka hadii la haysto laga gardaran yahay suldaan buu yahay Ilaahay waxaanu u baryaynaa kii cadaaladda ku waara ee ku caafimaada ee ku raaga ee Ilaahay ku barakeeyo inuu ahaado dad iyo dal iyo duniba maanta waa maalin weyn oo farxad noo ah waa maalin Jimco waa maalin noo yimi suldaan nagu qaaliya suldaan dhaqan samatalis oday Cabdiraxiin Saxardiid Kaahin waxaan ku leeyahay suldaan ku soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow dalkaagi iyo dadkaagi gacmo furan qalbi furan iyo niyad fiican marka waxaan ugu ducaynayaa suldaanka ducaan ku soo dhaweynaya waxaan ku soo dhaweynaya wanaag iyo kalgacalka ka muuqda golahan ayaan ku soo dhaweynayaa waana u ducaynayaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa kii mutafac uu ahaaye oo hadii la idinka cimriga u dheereeyo oo hadii la idinku waliba wuxuu dheer yahay nin mutacallima oo suldaana oo dhaqankii iyo dhaqankii hadii la yiraahdo yaqaano hadii la siyaasadaba yaqaano oo af walba ku hadlaya waa saacatul ijaabo oo bacda casr waxaanu soo dhaweynaynaa Suldaan Cabdiraxiin Saxardiid Kaahin suldaan aad iyo aad u qiimo badan ilaa maanta labada ka saan taagnayn wax kale oo maanaan soo bixin waxaanu ku soo dhaweynaynaa kartidiisa samadu ka taliyo wanaagiisa fircoonidiisa wax kale oo dheer waa suldaan aqoon-yahana oo aqoon leh oo karti leh oo intuu halka qurbaha joogay wax badan ka soo qabtay oo beesha aan ka soo jeednay bariga bartamaha koonfurtaba hadii halkan tahay hadii gudaha tahay dibadda tahay wax badan ka qabtay waan soo dhaweynaa xildhibaan magacaha jiro Allah ku karaameeyo sida wanaag iyo horumarka wada suldaan Allah ku barakeeyo Suldaan Cabdiraxiin soo dhawow suldaan aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa halkan Suldaan Cabdiraxiin Saxardiid Kaahin oo ah suldaanka bariga iyo bartamaha Hargeysa iyo koonfurtaba suldaan aad u qiimo badana suldaan aqoon-yahana qurbo joog iyo qaran joogba suldaan qurbaha ka shaqeynayay oo aqoonsiga Soomaaliland iyo ummadda isku xidhkeeda iyo beeshu ka soo jeedo wax badan ka qabtay xaggana imika u diyaarino hawlaha inta dhiman ka dhameystiro
waxaan leenahay suldaan kusoo dhow dalkaagii hooyo iyo hawl kuu qabyaa oo fara badanoo kuu diyaara soo dhow suldaan mar labaad iyo mar saddexaadba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaananu soo dhaweynaynaa annagoo madax fara badan iyo oqaalo fara badan oo meesha isugu timi ah waxaanu soo dhaweynaynaa suldaanka waxaan leenahay suldaan ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaagaba aad iyo aad waxaan soo dhaweynayaa suldaan cabdiraxiim saxardiid kaahin waa suldaaniin suldaan aad iyo aad muxuu ahaayey waxyaaba badan qabtay iminkana aad soo dhaweynayaa suldaanka soo dhawo suldaan soo dhawo lukaaga hooyo aad baan suldaan ku soo dhaweynaa mar labaad waxaan mahadle cuqaasha salaadiinta waayeelka siyaasiyiinta dumarka dhalinyarta halkan igu soo dhaweeya mar labaadna mahadle waxaan leeyahay waan niga mahadnaqayaa waa waqti gaaban weey oo habeena waqtigiina aad soo dayacdeen waan niga mahad celinaya inta maraan ka gudbo kullay waqti gaaban ma tukan waxa hoos bahadalkii waa nii ducaynaya waxa la horta bari ilaahay cudurada dawaafa ilaahayna dhaafi nin kasta waa ka ciilan ilaahay ka ciilto ilaahay muqaalifada khayr qabta ka dhigo ilaahay bogeena burcad ha isku mariyo wixii aynu ka caban ilaahay naga dulqaato nin kasta waa ka ciilan ilaahay ka ciilto salaatul mustaqiinka iyo jannada iyo cibaadada suuban baan ilaahay nooga baryaa waxaan ducada maanta dhaafsan halkan ka oran maayo qarankana waan u ducaynayaa madaxda qaranka waan u ducaynayaa xusbiyada waan u ducaynayaa madaxweynaha qaranka labada gole siyaasiyiinta culimada madax dhaqameedka dumarka inta waxaan leeyahay duco waa zamanul duca weeyaan waan ducaynayaa wixii kale hadalna fadhigan isku waraysan insha Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh